haddii warkan uu kuu sheegayo markaad maqasho aad nabiga aad u sii jeclaan intii aad jeclaan nabi laabka hadaan sii jeclaan islaamnimada wax badan baa ka qaldane dib uu noqo nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid ah ayuu meel fadhiistay ayuu ooyay baa la yiri in ilaahay wuxuu soo diray malku jibriil wuxuu ku yiri bal weydiin nabi maxamed maanta maxaad ku ooyisay goortu weydiiyeen wuxuu ugu jawaabay waxaan u ooyayaa ummadaydan ummadayda in ilaahay wuxuu soo dajiyay baa la wala soo fiicdi rabbuka fatarda ilaahay ummadaadu wuxuu ka siin doonaa waxaad ku faraxdee ooy nabi maxamed oo aamus baa lagu yiri deedna waa ka marka qiyaamaha la tago oo nabiyada dhamaantood ay mid walba u leeyahay nafsi isagoo waa ka dhahaya baa la yiri ummati oo ilaa halka inama ilaawiye goorta dadka la kala sooco oo haduu ilaahay ku rooyahay intii naarta ay galeysana ay gasho intii jannada ay galeysana ay gasho ayuu haddana halka ilaahay moogtahay sujuud u dhacaa baa la yiri ooyin iyo moogtahay baryo qabsadaa iyo amaan ilaahay kacbaa lagu yiraahdaa maxaad rabtaa umadaydii baa ku jirta buu yiri in umadaydii kamid ah ayaa ilaahu naarta gelisay baa la yiraahdaa dadna wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay xad buu sameeyaa buu yiri xadkaasi xadku waxa la yiri matira mise waa wax dunuub inta dunuubta noocaasi sameysay oo dhan ka soo saar baa la dhahayaa buu yiri ama inta tirada inta leeg xadka inta leeg ka soo saar baa la dhahayaa buu yiri goortaan ka soo saar aadan waxaan arkayaa buu yiri ummad kale oo ku jirta yaani cadaabta ummadaydiya hadana sujuud buu dhacayaa markaas haddana sidii oo kale xad baa moogtay la xadiiriyaa xadka markaan ka soo saaro ayaa haddana saasan ku wadayaa buu ilaa iyo marka u dambeysay ilaahay uu soo gaaro qof kasta oo qalbigiisa ay ku jirto laa ilaaha illa allah hal maalin u dhahay ama hal mar si ikhlaas u dhahay naarta ka soo saar baa la dhahayaa goorta uu inta ka soo saaro ayuu marka hadda dhahayaa ilaahay hadda raali ma noqoto ku dhahayaa markaas uu dhahayaa ha hadda raali noqday wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda waa meesha nabigu sallallahu alayhi wasallam uu kaleeyahay hadayda naftiina xitaa iga jeclaan iimaankeenu markaasi yani kaamil ma aha waxa lagu leeyahay naar waxaad ku galaysaa baad ku socotaan laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam nafteena isaga nooga fiican sallallahu alayhi wasallam